waana wasaaradda ummadda Soomaaliyeed horumar gaarsiin karta dhanka dhaqaalaha ka soo kobco waayo dhaqaalihii ciidanka qaadanayo dowladda mushaarkeeda ka baxayso waxaa ka soo baxaya projectyaal badan oo maamul goboleedyada la siinayay kadib hadduu dhaqaalaha kobco hataa wadanka dhan ku dhismanayo wadooyinkii horumarkii waxyaalo badan baa ku dhismanaya marka hadduu maaragtay beelo uu lacag cunayay waxaan la yaabanaa isweydiyo waxay tahay hadduu beelo lacag cunayay in eco waxa waaye hay-adii duulamaha hawada waa duulamaadka hawada lacagtii 30 sano ummadda Soomaaliyeed intay burbursaneed ee aruurinaysay diyaaradaha adduunka leeyahay hawada Soomaaliyeed dul maraysa lacagta laga qaaday ayaa lagu soo wareejinayay ninkii bayl dhaay hadduu marka bayl nin tuug yahay ama nin wax cunaya yahay ama nin wax kala qabeenaya 30 sano lacag la aruurinayay hawada ummadda Soomaaliyeed la marayay ay ka aruurinaysay waayo maan labatimiis ku soo wada fadhiisteen loo dhaa waxaan kugu wareejinaynaa lacagta 30 sano ka aruurinayay hawada Soomaaliyeed wixii maray يعني which is like and makes sense وواحد معقول قلنا نقرأ أركان إن الدولة ده هرمر جاريسو إنه واحد transparent يهين إنه بقالة هذا عادي هاي إنه وحول بعد هاي إنه واحد بميسك سارن تاعي وحول بنا ورقة يقلن تاعي marka taas ku ogaan kartaa inuu dhaqaaleena anaga noo kubcay waxa taas ku ogaan kartaa inaan horumar ku marno marka transparentiga adduunku wuxuu tusiyay 30 sano hawadeena la isticmaalayay in maanta baylo loo wacdo dhaho eco hay'adda eco aviation in uu caday ku tiraado lacagtii 30 sano ummadda Soomaaliyeed hawadeeda la isticmaalayo diyaaradaha caalamka isticmaalayeen ayaan dibni diibo celin rabnaa miiska soo wada fadhiista lacagta dal soo celinaa so aaway marka dadka sheeganaya lacag kala la xaday oo waa la cunay dhahayaan hadii lacag kala cunay sidee 30 sano lacag iga maqneedo ummadda Soomaaliyeed hawadeeda la isticmaal cunay sidee hadii lagu soo celinaya hadii la aaminsaneen wax kale hadalkaan hii kara mala think before you talk ingiriisku xukuma maha think before you talk so waa fikir inta la hadlay marka dadka aqliga la soo hadda fikiri la taas ku fikiri waay iyo dadka taageeraya qulubta ka maqan marka ilaahay waa dhihi kara qulubta u soo celi ilaahay qulubta u soo celi ilaahay qulubta u soo celi hadii meesha lacag la cunay 30 sano inuu wacdi sorry saaxiibkii waa iga go'aamay maqshada haa ku maqlay waxa raba inaan ku sheego beela 42 milyan buu kowda eekona waxay eeko hay'adii maaragtay duulamaha hawada waxay noo soo celin rabtaa 30 sano lacagtii ummadda Soomaaliyeed la cunaysa ma fahantay waa jirtay ay kaawa sidee isku qaban kartaa marka labadaas walaa wax la yaabo way Canada u imaaday magaalada joogta waay I think meel kaga taala ma aqaan laakiin xarunteeda waxay ku taalaa hawada adduunka laga xukumaa xaruntooda waxay ku taalaa Canada ma garat Montreal ku taalaa exactly so marka maxaa meeshaas ka you know Soomaalida dhalinyarada anaga nala eeg markino oo wax fahmayaan odayaasha naga daadanleeyda ah oo mooryaanimada iyo isbaara dhigashada iyo maxaa la jiray aan u barteen dadka dhalinyarada oo anaga adiga nala eeg waxa la rabaa inay fahmaan war ninkan lagu aaminay oo adduunka inta u yeeray fiirsiya adduunkiya noo imaada Mareykanka 300 milyan u siiyay dawladdan oo uu dhahay waxaan kabeynaa dhaqaalihiina wadanka Qatar 200 milyan u ballan qaaday oo dhahan waan kabeynaa Jarmalka wuxuu siiyay 100 milyan oo dhahan waan kabeynaa Sacuudiga isaga maalin walba markii la aadaba boorso lacag iska soo dhiibaa u dhaha qaataniyo 50 milyan 90 milyan 80 milyan hatta maran ku diidnaa jito dhaaraniyo 80 milyan heeso ma garat ma fahanti soo marka dhaqaalihii gudaha wuu kacay ninka kiciye waa beyle dekada Soomaaliya dawladii ka horeysay 2 milyan kama soo xaroon jirin bishii ma garat maanta dekada Soomaaliya oo Muqdisho ku taalo waxa ka soo xarota bishii 8 milyan ilaa 10 milyan lacag u dhaxaysa ma fahanti ninka noocaas ah oo keenay xisaabtanka noocaas ah oo airportkii 130 kun ka soo xaroon jirtay 5 milyan ka soo xareenayo yaa waxay rabaan odayaal danley ah oo qaran dumis ah oo mucaarada oo contract doon ah oo muxuu ahaa laga joojiyay muxuu ahaa af Soomaali maxaa lagu dhahay contractiga mashruucna si laga joojiyo ay waxay rabaan inay dawladda intay Facebook soo galaan inay dadka ku diraan oo ay dhahaan warkaalayoy war tuug buu noqday ninka maalin habeen iyo maalin wuxuu u soo you know aragtay World Bankiga iyo IMF-ta nimankan markay kula xisaabtamayaan oo ay rabaan inay lacag ku sit balana
sameynaya sama fahmino balaanka lagu sameeyo balaan waa ina canshuur arurisa hadda fiiriya dawladda Soomaaliya World Bank ku dhaheen bal odayaashan alweynayaasha oo ilmahooda korsanayo oo weligood xaaraanta siisanaya oo xaaraanta raba inaysan waxaan u sheegaynaa inaysan annaga naga aqli badin karin oo nagu diri karin IMF World Bank waxay ku dhaheen Soomaaliya shaqaalaha idin shaqeeyo Soomaaliya waxaa la dhahay waa ina ka qaadaan shaqaalaha dawladda Soomaaliya u shaqeeyo ma garanay waa ina ka qaadaan la dhahay canshuur shaqaalaha dawladda Soomaaliya u shaqeeyo oo ciidanka iyo kuwa oo civil servant-iga oo shaqaalaha oo caadiga ah waxa ka soo xarataa la dhahay waa ina ka soo xareysana la dhahay lacag waxay ka soo xareeyeen markii canshuur laga jiray 3 milyan iyo 700 kun ma garatay ma fahanti waxa ku jira xataa baarlamaanka naftirkiisa fiiriya dadka canshuurta dadkii la siinayo mushaarka yaa lacag laga jaray ما فهمت يعني هو ايغا لعاغا سو غش انكم سو غش بس waxa looga jaraa canshuur exactly ha marka sababta aan arkayso oo lacagta dhaqaalihii oo canshuurta gudaha wadanka ay kor ugu kacday waxa keenay oo 66 milyan looga soo xareeyay sanad gudahood waxa keenayo canshuurta la qaadayo waayo oo shaqaalaha laga qaaday oo airportka laga soo xareynay oo dekada laga soo xareeyay oo laga soo xareeyay maxaa la dhahaa hoteelada iyo baalka laga qaaday oo waliba si hufan iyo baabuurta bajaajleyda iyo kulli laga qaadayo way sama garno soo ninkii noocaas u shaqeynaya waxa la rabaa in annagana lagu diro oo nala dhaho war ninkii waxbuu dhacayay waxbuu isdaba mariyay bangigu waa ka furay turkigooy lacag ku shubayay sama garnino madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ninkii yiri dawladda maanta jirto waxay kaga fiican tahay wasaaradda dhaqaalaha exactly dhaqaalaha wuxuu yiraahday dhaqaalaha si aan caadi ahayn u maaraysayo dawladda hadda jirto dhaqaale kale ma jiro wasiir Beyle shaqada loo dhigay waxa waaye xafiis madaxweyne soo maran xagee jirtaa wardadkan waxay u bartaan mataqaanaa fiiri waxa la iiga sheekeeyay mataqaanaa niman baarlamaanka kamida oo ku jiraan waxyaalo ay u xanaaqsan yihiin aan ku sheegaya oo la iiga sheekeeyay waxa la dhahay adiga fiiri oo Axmeda yaa waxa soo degsanaysaa saddex maxaa la jiri container oo alaaba waxa rabtaa dawladda inaad cashuur siirin yaa waa dawladda ka horeysay dawladii ka horeeyay waxa leedahay niyoto yaan u tagaa oo baarlamaanka ku jiro oo containeradan ii marin karo waxa lagu leeyahay ka soo qaad baarlamaanka hebel ninka ku jira inta u tagtid waxa soo siisaa $1,500 dawladda si sama garanino fiirsiya baarlamaanka nin ku jiro yaa $1,000 soo siinaysa $1,500 $1,000 dawladda loo reebaya $1,000 musuqmaasuqa lagu bixinaya meeshii laga qaadi lahaa saddexdaada container 15,000 waxaa laga yaabaa saddexdii container inay kugu baxdo $4,500 ilaa $5,000 oo ninka baarlamaanka intuu imaado dekada uu xabadka garaaco dhoo ninkan anaaka mas'uula ha loo sii daayo alaabtiisa ha la mariyo oo uu hanjaba maxaa la dhihi jiray nimanka shaqaalaha dekada jooga ma garat heerkaasa ahayd nimankan marka baarlamaanka joogaad arkaysid niman waxay ahaayeen dekada lacag ka qaata oo dadka containerada soo degsanaya u soo mariya meesha oo u soo fuutiyo ma fahanti soo marka wixii la bartaa la baafinaya ma maqlaysi hees dhaxda oo ma qaano meelaas laga qaaday wixii la bartaa la baafinaya dad baa waxay baafinayaan musuqmaasuqi ma aad baa la socda aad marka niyo Beyle takhasuskiisaba waxa waaya u maleynaya jaamacadu uga soo baxay waa dhaqaale economy waa ma fahanti waa wasiirka kaliya oo shaqadiisa loo dhiibay oo uu garanayo ma fahmino ma aad horta wasaarad badan baa shaqeynaysa sida wasaaradda duulimaadka iyo hawada Mr. Umar aad bay u shaqeynaysaa laftigeeda aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan wasaaradaha Soomaaliyeed maanta nabadina kulli waa shaqeynayaan laftigooda salaan baa inta uga marinayna insha Allah dhammaan wasaaradaha aad bay u shaqeynayaan laakiin mid aan ku tiirsanahay oo dhaqaalaha waxa soo dhan ay ku xarooto wasaaradda Beylana waxaan maaragtay u garab taaganayna asaga taageero aad baan kaaga mahad celinayaa inuu wacdi waxa soo qabanaya qof kale oo kugu soo celinaya ay brotherkii ku meeshaan wuxuu leeyahay Xasan MJ al dhaha silisiitu nooga sheekay dab casr mu noomaleysabe muhiimadda dhan waxay tahay ay ku saleysan tahay muhiimadda dhan waxay ku saleysan tahay waxay tahay aan rabaa inaad baaq inigu jeediyo waxay tahay weligaa qof xumaan wada ha taageerin
waayo warqadii wixii barnaamijka la soo jeediyay golaha baarlamaanka loo horkeenay lagu eedeynayay beyle inuu cunay golihii baarlamaanka warqadii dib loo fiiriyay la ogaaday inay waxaa been tahay wax la dhodhooba inay tahay halka qofka ministerka bayle uu caddeyntiisii warqadihiisa la yimaaday iyo meesha waxay ku sheegayaan inay sheegaan ayaga marka haddaysan hay inay waxba sheegaan dee waxay meesha ka hayaan ma laha waa qalalaasyo isku dubirida dowladda ku wadan waxayna ku lug leeyihiin sidoo beelo hadalkiisii kasoo baxay uu u dhigay uu yiri waa dad gacan shisheey u adeego doonayo maaragta loona soo adeegsado ummadda Soomaaliya inaysan horumar gaarin dal haddii la burburinayn inay lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha midaas bay baadagoobayaan ayuu yiri beele wuxuu kale ku sii daray waxay tahay markii mashruucii fili la waayay in ay u hanjabaan wasiirka ay yiraahdaan waa ku dilina yacnaha waxyaalo badan baa iska jiro marka waa dareemi kartaa heerka ay meesha wax marayaan iyo heerka ummadda Soomaaliyeed maanta taagan tahay marka haddii aad dhalinyaro tahay waxaa adiga kugu wajahan ama kugu aadan inta social media isticmaasho dhalinyaro u badan yihiin hooyooyin gabdho kulli dhammaantiin walaalo qof walba u badan yahay marka waxaa laga rabaa idinka inaad mar walba garab istaagtaan waxa xaqa oo reality-ga idinkana ma qarsoono waana ogtihiin cid walbana waxay doonaysaa nabad iyo nolol inay barwaaqo ku noolaato cid walbana waxay doonaysaa inay horumar gaarto runtana sideeda isma qariso maanta qofkan aaminay horumarka isbedelkooda waa beel berina hadduu isbedelo dee dabcan isbedel ma wado waana bini aadan beri lacala hadduu isbedelo xataa wax walba way soo cadaanaysaa marka intuu wanaaga wado aan waa mahadsantaa aan ku dhahno wanaagiisa dee dabcan uma malanin haleyn doon inay wax yihiin wax ka halaabi doonaan mar walbana anaga garab taagan inay idinka taageertaan wanaaga dadka xumaanta wadana aad maaragta runta u sheegtaan intaas kaliya idinka inaad samaysaan wanaagana mar walba ma qarsanto wanaaga aad garab siisaan intaas baan ku baaqaya dhalinta Soomaaliyeed meel kasta adduunka joogto inaan kusii dheeraado ma rabo laba iyo hal haddaan laba qof siiyo baaqa wuxuu yahay ugu dambeeyo accountability-ga wuxuu yahay waa responsibility waay qof maaragta accountability hadday timaado waa responsibility waana wax walba waa maaragtay banaanka inay yaalaan cad yihiin waay mid la isku haysta maaha waa dowladda maanta jirto waxeeda waa transparent waxeeda way cad yihiin waa clearly waxa waa wax walbana warqad bay leedahay si official u soo baxdaa haddaa rabtina si official ayaa u ogaanaysaa dowladna qof walba maaragtay kama noqon kara markhaati dowlad waa dowlad awood bay leedahay sir bay leedahay horumar bay leedahay dana ayada u qaaskii dadka ku hogaaminaysa leedahay qofka hadduu hogaan u noqdona dee asaga yaqaana khibraddu kugu hogaaminaya anaga waxaan u dooranay in ay ummadda Soomaaliya dhibaatada maanta ku jiraan ka saaraan wadaday noo falayaan ayaa marayna wadada haddii wada xun noqoto dabcan waxaan leenahay nooma fiicna ma naga days haddii wada wanaagsan tahana waan ku daba feelaynaa si aan u gaarno hadafkeena iyo wanaageena sidoo la socotaan waxaan la soo tababarayaa ciidan aad u tiro badan waxaan noo tababarayso walaaladana Turkiga waa inaan garab istaagnaa ciidanka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa inaan garab ku siinaa horumarkooda iyo maaragtay in wanaaga wadaan maanta inaan garab ku siino dhalinta yaryarka soo baxayso okay qodob baan rabaa inaan aad ugu iftiimiyo ummadda Soomaaliyeed waxay horumar u gaar lahayd waxay tahay in adduunka dalkiisa asaga dhisto ciidankiisana asaga dhisto laakiin anaga haddaan dhalinyaro Soomaaliyeed nahay dadka ummadda Soomaaliyeed nahay inaan ciidankeena dhisano marba nin walba waa ka sii cararaya haddaad wax baratay gabar Soomaali haddii aad tahay wiil Soomaali haddii aad tahay dalkaaga waa kuu baahan yahay ciidankan inaad dhisto waa lagu baahan yahay meel walba aad joogtid waa inaad ka qayb qaadataa sida ciidankaaga u dhisto dalkaaga ugu faantid adoo xidig laha adigoo shan xidig laha adigoo saraakiil laha wax walba waxaa waaye dalkaaga sharafta iyo quwadda ku hesha adduunka meel kale uga helaysa malaha waa hoygaaga waa dalkaaga waa dadkaaga waa deegaankaaga sidoo dowla socotaan 1976 gabadhii ugu horeysay Soomaaliyeed ee diyaarad Soomaaliyeed hawada la gashay adduunka caalamka inayna ahayd gabar Soomaali ah oo hadda nool oo Mareykan ku nool Minnesota welina ka mid ah dadka aan nabad iyo nolosha midnimada qaran asli ilaahay naxariis iyo janno ha siinta adduunka ku nooshahay qarankana uu soo dadaashay wana u soo halgantay sharaf iyo ciise ayay naga mudan tahay iyo maanta sumcad leedahay wad ogtiin gabadha ku xigtay oo u soo baxday in diyaarad ama waxa korto 2010 ayay gabadha kale ku xigtay South Africa mar dhow ayay soo baxday marka waxa dareemaysaa inaan quwad iyo sharaf leenahay dalkaaga quwad iyo sharaf iyo ciise ku leedahay waa inaad dadkaaga iyo dalkaaga mar walba u istaagtaa waa in aad aqoonti cilmiga leedahay dadkaaga aad jahilnimada uga bixisaa wax u bartaa ma aha kaliya
yaa inoo maqan, yaa kala sugnaa, yaan horumar kale la sugnaa. maanta dhalinteena jaamacadaha ka baxeen haddiisan dalkii waxba ka bedelin, cidda kale noo imaanayso oo dalka inoo maamuli doonto yaa waay? waa cidna. yaa dalkii ku haray? 4 odayaal ayaa ku hartay. 4tii odayaalna cimrigoodii waqtigooda ku sugaya inay dhintaan. yaa kuu maqan marka dalkaaga iyo deegaankaaga iyo dadkaaga? haddii qoyskayga uusan ku nooleen, walaasha, abtiga, eedada, adeerka, in adeerka, sodoga iyo sodogtaada dhammaantooda ku wada nool. marka midaasaa loo baahan yahay inaad ku fikirtid. waana dhulkaagii, waana hoygaagii, waana gurigaagii saxdaad u leedahay intaad aakhira ka aadaysa. marka midaas anagaana laga rabaa inaan garab siino, goob garab istaagno dalkeena Soomaaliyeed iyo ciidankeena Soomaaliya. had iyo jeer waxaanu u baahannahay gabdhaheena haddii xataa ciidanka ka qayb qaadan karaan. ciidanka waa weyn yahay, dhowr nooc ayuu leeyahay. xafiise ayaa jirto, wacyigelin ayaa jirto, wax walba ayaa jiro. waxaa ka mid ah dhalinyarada laftigoodii ma wada dadka dhan inay qoryo wada qaadanayaan. waxaa ka mid ah dadka inay wax maaragtay dadka kale moraal siiyaan, dadka kale inay wax baraan, dadka kale inay garab istaagaan, dadka kale inay moraal siiyaan, inay u saacabatumaan, inay niyadda u dhisaan. waxyaalo badan ayaa naga maqan. intaan qabiilka ku mashquulsannahay maan ku mashquulno moraalka, wanaaga, farxadda, motivationka, inspirationka, inaan dadka walaaladeena maanta wadankii sumcadiisii karaamadiisu halgamaan maan siino. lacag nagama gadno, waa just xigmadaad baratee waa ma siisid, ku sadaqaysatid, ajir bay ku tahay. waxaad dareemaysaa macaankeeda. arag walaalada Turkiga dadka soo tababaray sidii u faraxsan yihiin ciidanka kala tababaray. waa nin dhulkiisa jooga macaan waa oo nabad iyo barwaaqo ku jiro, sax ku jiro, aa u tagaysaa ku soo tababaray. maan ku fikirnay anaga xataa dad kale inaan tababari doono ama garab istaagi doono. farxaddaas iyo buurahaas meeqa buuroodaan leenahay, meeqa dhul macaan badan aan leenahay. buura ma fiiri, Hargeysa fiiri, dhulkaas oo dhan fiiri, saas u bax ilaa iyo dhulkaas oo dhan fiiri, adiga oo qoyiga bari dhulkaas dhan fiiri ilaa iyo bari. dhulkaas waa macaan, waa dhul shaashaha, waa dhul farxada. wax ku nool ma laha, cid ku nool ma laha maanta. nin walba waa ka cararay. waxaan ka dhigi karnaa meelihii adduunka dhan u maaragtay u dalxiis tagay. qoraxda cimilada dalka Soomaaliyeed adduunka meel ku taala ma laha. cimilada adduunka ugu macaan aan leenahay, biyaha adduunka ugu macaan baan leenahay. ceelasha biyaha marka la yiraahdo oo markaad cabtid aad biyo kala nacabaynin. waxaan maqlay maalin qiso ah ceelal Soomaaliya laga furay oo dhankan jubbooyinka ku yaalo, kuwa cadaan oo shaqo hay'ad ku jiraan ceel qodan u tageena maqlay. meesha meesi lahayn biyo wax meelin gaariga waxay ku wateena maqlay waterkii gaariga ku wateen. ninkan ceel ku arkay, ceelkii biyihiisu dhadhamiyey, waa ka foqo waaye. adduunka lamid maysan noqon. testigii biyahaasuu ka dhadhamiyey, wax lamid ah muusan arkin. caagadihii biyaha waterka uu kasoo qaatay magaalada waa daadiyey, biyihii ceelku qaatay. dhalinyaro Soomaaliyeed la socotay, kuwa aan wareysan doono ii sheegi doono warbixintaas, biyihii qaateen. markaan dib arrintii loo baaray aan u baaray oo deegaankii dadkii odayaasha degnaa markaan la weydiiyey, ilaa hadda ceelka meesha ka qodan yahay. odayaashii dadkii deegaanka degnaa waxay dhaheen ceelkaas ceel la mid aan aragnay, weligiin maan arkin u dhahay. biyaha sidee nadiif white ku yihiin, dhadhanka iyo macaanka leeyihiin ma malayn karta. maxaa yeelay waa mineraalka dhulka yana ku jirto. dhulka waxa ku jiro waa oo Ilaahay noogu deeqana siiyey. bal ka war adiga waxaas ka gaajeysanaa maanta, aan ka oomanahay, aan qaxooti ugu jirnaa 20 sano ilaa 30 sano. gabadha ku dhalataa ku sii dhashay, kii ku dhashay ku sii dhalay. bal ka war melihid qulub xanuunkaas dareemi karto. maal waxaan dhahnaa dad ayaan maaragtay isku keentiro, dad ayaana burburiyo. war haddii aad sidaan tahay yaa ku kala furfuri kara? waa qofna. waayadan dambe adduunka waa halaabay, qof walba wuxuu noqday baahi buu u cararay. laakiin baahida kelinimo ugama baxaysa. waxaan moodaynay nin walba inuu baahi keligiis ka baxayo, laakiin waxaan kusii noqonay meesha ugu xumeyd aan kusii galnay markaan qoys iyo shakhsi u cararnay. laakiin haddii aan isku duubnaan lahayn waan dhergi lahayn, wax baa naga soo hari lahaa, hambadii naga soo hartaan adduunka dacdadiisa siin lahayn. laakiin inta shakhsina aan baadagoobaynayna intaan keligeen ka noolaanayn, you never ever inaad ku noolaanaysa midaas. weligaa safar baanada struggle baa ku jiraysaa iyo rafaad.
waana xaqiiqda dhabta ah dadkeena qaxootiyada iyo derbiyaha dhigay aan isku dumnaano dadkii hore waa dhammaadeen generationka dambe nadiifka aan gacmaha isqabsano gabar wiil hooyo habarar abti adeer gacmaha isqabsano si aan u badbaadino waxyaalaha maanta jiray kuwa imaan doono that's my maaragtay advice-kayga waaye qof walbana advice-kiisa sidaan oo kale u wanaagsan haddii 2 iyo 3 aan iskugu tagno wax badan waan ka meel dhalin karnaa wax badanna waan qabsan karnaa marka aan noqono dad hadlo yaana noqonin dad isku cabursan oo keligooda depression wax walba ku qaada yaana aamusin hadalkaaga waa mid wanaagsan la wadaag walaalka xigmadda kugu jirta la wadaag qofka walaalka gabar iyo wiil horumar ku gaaraysin qabaalka la iska dhaafo meel walba joogtid ka aas dhalinyaro oo ummad Soomaali ah meel walba degan si dalkaaga u bedeli lahayd taas baa iga dardaarna dalka Soomaaliyeed gumeysi oo wato diyaarado gumeysi wato hub gumeysi ciidan u dhan ayaa 13 dhalinyaro ah oo waxba haysanin oo ma aragtay adduunka fahansaneen inay gacmaha saa isku qabsadeen 13 dhalinyaro isweer yar meel ku galeen ee cadawgii dhamaan saarna adduunka kusoo duul iska qaadeen ee qadiyadooda iyo jinsiyadooda ay taagteen iyo caalankooda Soomaaliyeed iyo magacay sheeganayeen ee markaas abuureen Allah u naxariisto Maxamed Cawaale waa ninkii caalanka Soomaaliyeed in uu cirka iyo dhulka iyo badda inuu fiiriyay waa ninka ku fikir inuu caalankaas design garayo aan maanta ku faantamay oo Luis aan dhahay Soomaali baa ahay you have to think magacaad ku faantamay Soomaali baa ahay ninkii ku keenay sidoo ku keenay mis weydiisay rafaadku ku keenay mis weydiisay markuu design gareynay ismaada weydiinin waa cunta waa cabta waa seexata Soomaali baa ahay caalanka Soomaali qaata Soomaali you have to ask in Turkey ma caalanka yaana keen waa inaad isweydiisaa marka aan noqono dadkii 13 dhalinyaro wax bedelay maanta adduunka aan wada jaamici wada nahay adduunka dadkeeni dhalinyaradeeni ayagoo yar gabar iyo wiil jaamacada adduunka baxaan adduunka madax maanta ka wada ma dadkeena bedel weyna maya ma bedel weyna anaga ayaa isfahmi laha dhalinyarada ha isfahmaan dhalinyarada ha isfahmaan anaga isfahmi laha haddaan anaga isfahano awooddeena dalka dhan waa ku bedelmanaya anaga isfahano balankeena waxa waaye in anaga isfahano walaalka fahan walaasha fahan horumar taasaan ku leenahay laakiin inta adigu nin dhalinyaro walaasha walaalka aad farfiiqaysid weliga nafsadaada horumar uma gaaraysid walaalkaana horumar uma gaaraysid balankeena wuxuu yahay wasiir beele iyo dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed inaan garab istaagno horumarka dalka aan garab istaagno midaas baan isku ognahay gabadhan walaashay xaawa hamar siinaya كدبنا السلام عليكم. وعليكم السلام. خبر السبت هاي. يا الحمد لله. الحمد لله. horta waa mahadsantahay maasha Allah ilaa khayr badan ha ku siiyo waxaan dhageysanayay hadalkaada quruxda badan ilaahay aqliga ku siiyo Allah ku deysto ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa wiilasha kugu facay gabdhaha kugu facay iyo aniga intaan ana kamid ah inaan kugu daysano insha Allah okay awada topic waxaan dhageysanayay in lacago iyo waxaas lagu muransan yahay waxaan iska jeclaan lahaa dadka maskaxda marka ay ka dhimato way adag tahay si jidka saxda loogu toosiyo marka waxaan jeclaanahay dawladda in lagu wacyi geliyo in ay completely ay joojiso dadka macnaha qof markii ay debate galee ama dawlad qalad la galee ama la xiraay ama sharci lagu qabsanayo oo qabiilka ay dabada la galayso oo qabiilka uu soo qaylinayo macnaha waa in qofka bini aadanka uu bartaa dambi hadduu asaga gala haddii uu macnaha wax faa'iido sameeyana asagaa sameeyo looga mahad celinaya ilaa arrintaas laga gaarayo because hadda ilaahay markuu ku xisaabinayo kaliya oo ku xisaabinayo qabiil kulama xisaabinayo wadamadan ani aan joogin Kenya ku noolahay haddii maanta ani aan waxado ana la isoo qabana gabadhayda ma ii imaan karto wiilkayga ma ii imaan karto ma ii difaaci karaan
ويعاوي كران إن معناها شرعيا إسو معناها دين سلام محدين محل قدها إسو دمينتان لكن دم بيجي مقاضي كران مركز دولة أنا وافق كرا وعشتها لكن أنا وح أستجع لها هدي كسر من كر الهاي شرعي سو أقصيها بدن قف والبو وحلو السوق أسرع أوجاره فكرديس أسرع أوجاره هذا كان اسكت دبي عاية وقبيل نمط اسكت دبي عاية ودك العكس كوها يستو صدق كسر أو الصوت دافع ودن كان أسرع بقارة له oo maaragtay hantile adii ma aadan garana umalayna qof yaraad ma jirna umalaynaayo ma baadan dal oo magaalada hadda aniga aan taaganahay si u dhisan ee ku soo dhex yaaceen magaalada Muqdisho wixii yeelana waa la bilil qaastay sida loo kala badsadaba intaas lacag dambiilaha looga soo qaadanayay Yurub iyo Geeska Afrika iyo meel kasta laga soo tuugsanayo tuugsi la iga dheh ay tuugsina badeen ee sharafteena dhulka la galeen ee maaragtay ruulkeena ka dhigeen gorilla rule ala dhigi jirmiya ma qanaysa ha gorilla politics ma qan imagine magaceena meesha uu tagay dadkii saas nagu sameeyay weli maanta dabada isgashanaya because qabiil isku gashanaya waxa ka codsanaya dadka Soomaalida inay ogaadaan waxa nagu filan qof walba aniga waan shaqaystaa hadda wadankayga nabad haduu yahay waan shaqaysanaya xamaashaya business sameeyaya all you need is a peace country oo ku helo biyo nadiif daawo oo isbitaalka saddex qabiil u tagayno inta tagto qaarkaada dhiibanaysid cunugaada lagu soo daaweyna ka soo laabanayso waxa ka codsanaya dawladda dhalinyarada dhageysanayso qabiilka horta in la iska dhaafo ilmaha special wali in baabasada bama liidin ku xiray أنا جنة جلي قف دليل صار جنة جلي أنا ولي ما أحكي ما أنا مقلن هاي مدو حال ده جاج ننهب الآن لحرو قبيل كأسيو جاجون أو ما أنت وحون هيسن أو جوري أو جيفت هيسن أو أمريكان هيسن هبل الآن لحرو هبل أو تجاري على صوت الأرض مركز عيونك مساكين كجاجرة هاي على وش قيسنايا مركو حواي education كو يلا ما جوج لكن وحن كبر يا ضدك مسؤولية ضمن هاي أو برلمان كجوج إن أي ضدك بران قفل بمسؤولية دي أصاؤجار ما أنا قف كمان أنت هدي هذا اللي لو وري ما أنت العكس أنا سواء كسر كلام جريان ضدك قبيلة سو أرداي أو فيسبوك مالكس أنت تاج واي طبعا كان لنا بروبلم كقبته قبيل مسوقي كرماش قف كله أركين وقبيل كاشون عينه كم بليد اللي ما شاء الله قصاره because waxa nadiliyo nabaadiyo qofkii arko inuu qabiil kaashanayo oo macnaha ii sheeg goolkiisa inuu ku gaaro qabiil rabo lagu arko oo dadnimadiisa iyo kartidiisa iyo lacagtiisa iyo educationkiisa aan ku gaari karin waa in noogala saaro baarlamaanka Soomaaliya waan baaba'nay waan gaalownay waan dhimanay waan ceebownay waan la bahdilay midgaanimada aan dadka masaakiinta nala dhashay ku caayin jirna annaga nugula caayay oo midgaan aan ka nahay adduunyada wajigeeda maantay dadkii masaakiinta ah oo dhulka iska lahay oo bal Jubbaland hadda jareera iska leh maxaa fara dheer ka jiro dadkan faraha Allah ka gooyeen xukunka jareerta waxa laga siiyo baarlamaanka jareerta waxa laga soo galsho Jubbaland jareera iska leh jareeraha xukunto marka cadaan jareeraha xukunto war cadliga hallo istaago oo Soomaaliya Ilaahay laga baqo إن شاء الله ما سنت عبريل خير بدن الله خير بدن الله كسيادين الدلال كذي عقل هذه الجناشة إلهي كسي الله كوكرديو دل يرد الصومالي إنه وحنا كبريا يا إنه برتان صومالي النمو إنه برتان اسكو فيلنا شقف كست إنه اسكو فيلنا معناها هدا وحبرتي هذا اسكو فيلم هدا عقلي يرتو دك هذا دينا كرع هذا اسكو فيلم قبيل إنه سن وحيدين قبيل وأيوتو نينك تجار كأه قول كيس ماشو كوجاري لهاي دريس سو كوجاري لهاي أيوتو قطة مسكين دل وجو مجرته ماقا إسبتال تارو ما أنت اللي جور هين قبيل كسون كور هين مركب إحنا إذا كبريايا دولة الصومالي هدا مغلايا هدا مغلين
in la iga gaarsiiyo in qofkii qabiil dabada la gasho noogala saaro dowladda because ma ban xukumi karto aniga waxaan rabaa xafiiska markaan galo warqadayda aan geysto inaan Soomaali ahay qofka meesha fadhidana ay ii aragto inaan Soomaali ahay ay ii aragtaan rabaa maahana inay ii aragto ma rabo yaa tahay ee lahjadayda raadisa ma rabo ina abuurista ilaahay abuura ii raadisa ma rabi ma rabo war aniga hadda wadan gaalaan joogaa xafiiska sangala warqadii aan ka rabo waa ka soo qaadaa driver license-keyga ka soo qaadanaya waxaan ka soo qaadanaya insurance-geyga ma la ii dhahaayo yaata war annagoo muslim maba nihina anyways muslim isku sheegayno iska beenkaase iska feeg waaye annagoo Soomaali isku waxaa maanta dhan isku taagan oramadii waa taas dad masaakiin oo walaalaheen oo la deganahay oo ilmo ka dhalno oo ilmo naga dhal oo walaalano casho milixna hadday Facebook soo galaan halkooda ma ay tamaayo annaga markaa soo galan afkeena sun ka socoto war afkaan sunta oo waxa ka socdo sunta ay noqoto kalimatu dayyibatu ka shajaratin dayyiba ilaahay dhaha kalimada macaan waxay ka macaan tahay oo dhaha ilaahay geed mira leh ka macaan tahay oo cirka iyo dhulka laamihiisa fidiyeen oo dhaha ilaahay marka Soomaaliya sunta afkiina ka socotani sunta afkiina ka socoto umada ka daaya oo oramada aad caynaysiin walaalihiina afkiina ka daaya dadkaas dad xalaal cuno oo shaqaysta waa xaaraana wada cunay mid wax bilil qaystay mid inta North America imaado shaqaysanayno lacagta islaamiyad dilay nin maaragtay 30 sano wadanka ku haysta bililiqo annaga dhan xaaraan dadkaas waa xalaal umada waa la dagaala laakiin cayd waa qalad walaalayaal umada cayd ka daaya oo dadkaas oramada waa topic waa fahmi kara laakiin waa xanuun dhexda iiga jira dadka si akhyaarnimo uga garbaxa war cayd annaga nagu baabiisan oo nagu kala disheen umada afkiina sunta ka daaya anyways waa ku sii dheeraaday habar macaa waa mahadsantahay waqtiga ay siisay insha Allah khayr far badan ku rajeeyo أجد baan ugu mahad celinayaa abuurteena oo sida saliimka leh iyo aqliga oo saaxiibka leh oo ku hadashay waana wax reality jiro haddii aan Soomaali nahay waxaan naqaanaa afkan inay sunna ka baxdo waana runteeda umana malay Soomaali inay iska dayn doonto hadal xumada ama afkaas ama hadalkaas anagana dee kama celin karno laakiin nin walba asagii nafsadiisa iyo dambigiisa leeyahay laakiin anaga baraarujin baa ku leenahay culimada weyn ee baraarujisaa anaga walaalaha waan baraarujinaa wali hadda xumaanta ku sii jeedin nafsadiina un bay dhibaysaa marka ilaahay atoosiyo umada Soomaali intaas baa oran kara محمد حسن MJ kuma soo qaban karo ma arko طبعا I don't know inaad idinka soo dalbataan ay noqonaysaa aad baan wada salaamay dadka gadaal ka soo wada galay aad iyo aad baan wada salaamay uga soo qaban lahaa waa ii ka soo qaban lahayahay ma aqaano ugaas waa soo qaban lahay ma kasaayo ka bax ku soo noqo bal arko MJ Maxamed MJ okay oo soo qaban karaa hadda Maxamed MJ dhankaaga soo jira yaa waa ma ina wacdi baan waay raalo MJ Xasan waa soo qaban lahay iga raali noqo ugaas aan fiiriyahan mar haddii aan siin karo chance ugaas laftiga waa kusoo qaban lahay cafwan ugaas waa kusoo qaban lahay iga raali noqo ugaas xataa waa soo qaban lahay wixii chance aan siin karo heer I don't know heritage okay wiilkan ma aqaan qof dumar ma usuula wiilkana siinaya ugu dambeyn insha Allah waan وعليكم السلام سيفي حكمتك يا كور والحمد لله ما شاء الله
anigo aad baan ku adiga soo salaamayaa koowayo waqti yar qaadanayo waxa qodobo 2 qodob 3 qodob ka dhigay may aad baan ku salaamayaa dhowr mar baan arkay adigoo arrimo fiican qabanaya dadka ku dhex jiro arrintii loo baahnaa waad qabanaysaa nin dhalinyarada dadkiisa wacdinaya waaninaya kale iyo tusaale siinaya la wadaagayo wixii maskaxdiisa ku jira aragtidiisa aad bay u wanaagsan tahay waana waxa loo baahan yahay ma fahamta walaalkay صح dadkeena Soomaaliyeed meel walba adduunka joogaan horta Ilaahay ha xifdiyo waxaa loo baahan yahay in isku duubni wadajir iyo walaalnimo mar walba aan ka shaqeyno keena qaldanna aan qabno keena saxna aan garab istaagno inkastoo aad moodo in caatifada ay naga awood badan tahay mid khaldano aad ogtaho aad garanayso wuxuu yahay qadaradiisa mar walba aan isku dayno inaan taageerno garab istaagno marka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba adduunka uga nooshahay especially dhalinyarada waay waxa loo baahan yahay waa dhalinyarada waa aniga iyo intii naga yar iyo intii naga waaweynba oo dhalinyaro ah waxa loo baahan yahay waa ayaka waddanku wuxuu u baahan yahay waa ayaka dadkuna waxay u baahan yihiin waa ayaka marka dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha iskabsadaan iskuna tanaasulaan wax walba wanaagana ay ka wada shaqeeyaan aniga thank you so much thank you so much aad buu mahadsan yahay ninkaas qodobka qaybta dhalinyarada ayuu ka hadlay aad baa uga mahad celinayaa waa soo gabagabeynayaa ugu dambeyn waxaan leeyahay meel kasta aad joogtiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin wacdi haddii aad xigmad kale fikir kale ma haysa jaanis kale haddii aad 2 daqiiqo ama 3 daqiiqo barnaamijka waa soo gabagabeynaa insha Allah aad baan wada jecelahay meel kasta aad joogtiin aan ka shaqeyno nabadda iyo horumarka ina wacdi aad baa ku salaamay maxaa 2 qodob maxaa barnaamijka kale ka dabageen doonaa barnaamijka saaxiibkii waa maadsantahay hadda igu soo celisay waxaa ku sheegaa saaxiibo muhiimadda waxaa waaye dowladdan hadda jirta oo nabadii nolol uu beelo wasiirka maaliyadda ka yahay inaan garab istaagno waaye dadka danleyda ah oo maxaa la jiray oo sumcad dilka ah you know geela markii la qalaayo markino adiga geela qalaayo markino ma waaga isla noolaan jirto markii jirtay waa geel waa aqaana geel waxa maqlay maxaa lagu dhuftaa midida meel looga dhuftaa sida loo qala si wanaagsan ma ahana laakiin waxa ha dhuunta lagu dhuftaa la dhaano markaas sama garno asaan la ninka beelo taagad gareenay markino waa nin Soomaaliya dhuunta ku dhufanay samada garino muhiim danta uu kaliya maxaa matqana beesha caalamka inuu nagu diro rabaa ilaan beesha caalamka hadda waxay tiraahdaa adinka idin aaminayna adinka lacag isugu kindibeyna account-kiina ku shubeena mogta so marka qofka arkaysid oo Soomaaliga ah oo maxaa la jiray oo ka daba shaqeynaya dawladda oo dhahay beelo tuug waaye beelo wax buu qaatay micnaheeda waxay tahay qof dhuunta sida geela loo dilay ama markino ku dilaayo waay so marka waxa u baahanahay dadka noocaas oo kala waa arkaysa amlana markuu hadlaa wuxuu dhahay dad baa iga raaco dhahay baarlamaanka oo waxay dhahan buu dhahay war contractiga naga aaway contractigi you know niman oo la siin jiray contract oo laga joojiyay waxay rabaan inay dawladda Soomaaliya isbaaro u dhigtaan ma fahanti so marka kuwaas waaye kuwa ka dhalinyaro ahaan Facebook inaan soo galno inaan ka hadalno sama garno u baahanahay waay kuwaas inaan anaga qabano waay you know Facebook is powerful iyaga naftirkooda Facebook ina la isticmaalooyaan dadka waraaqadaha Facebook ay u dhigayaan you know waraaqadaha markay soo baxeen Facebook la soo wada dhigay ma xasuusta waraaqada oo ay qoreen Facebook hore ka soo geliyeen wasaaradda maaliyadda 20 milyan ku maqan 42 milyan ku maqan you know book iyo waxay kiciyaan muxuu ahaa kicindadeeda waay sama garno ayagu ka faa'iideysanayo emotionalka dadka oo dhahayaan war dawladdii aan saan u maleynaynin ma tuugada noqotay war ninkii beela ahaayo la dhahayay muxuu ahaa baalki midida kale maxay ka fiiri inay dadka sida markino inay dhuunta ku dhufanaan waxa ka garan mataqana waqti deen cafiska la gaaray mogta dawladda hadda deenta in laga cafiyaa la rabay soo moogido صح December dhamaadkeeda waxa loo fadhiisan rabaa Soomaaliya bataatan deenta lagu leeyahay dhan in laga cafiyo micnaheeda marka maxay tahay nimankan baarlamaanka ku jiro oo lacagta qaadanaya markino iyaga lacag way qaataan oo international community-gaas ka qaataan laakiin wadankan inay waxay rabaan ayaga u xirxirnaadaan oo baarlamaanka u fadhiyaan oo loo soo tuugsado oo ayaga wixii la soo tuugsado qayb laga siiyo ma fahanti صح so marka ka dhalinyaro ahaan ina u istaagno waaye ina dawladda taakuleeno waaye ina dawladda u hadalno waaye dawladda ina garbo u noqono waaye ina dawladda annaga aan wixii wanaaga ay sameynayso aan ku taakuleeno waaye
dowladda maanta waa arkaysa way ka garbaxday baarlamaankii waa isqabsadeen iyo guddigii naftarkoodii isqabsadoo kala qaybsamay waa arkaysa oo gabar kamid ah leedahay war meesha aniga guddigan kamid ah meeshan waxaan aad sheegaysaan ma arkin ay tiraad meel lagu saxiixayna ma arkin sama girno soo marka dowladda waxay u baahan tahay dad dhalinyaro ah oo u soo baxa oo dadka sumcaddooda dadka dilaya oo social media ku jira oo daba dhigta oo dhahaan war ninkan oo kale Facebook ku jiro tuugadu u shaqeeya waa kana wax uu ku hadlayo wuxuu u shaqeeyaa nimankan tuugada ah oo Facebook uu uga shaqeeya ayagu la qaraabta sama gar laakiin dowladdan horumar inay sameynayso cid walba ogtahay dhaqaalaha horumaraa laga sameeyey waataa kuu sheegayaan ku dhahay 66 milyan yaa budgetka Soomaaliya lagu daray 2019ka samada garnino mushaarkii waa la bixinayaa mushaarkii waa la bixiyaa oo mushaarka ciidankii waa la siiyaa waa aragtay xataa waa loo kordhiyey sidaan maqlay sama garnin marka mushaarkii kale oo shacabka la siinaya waa la siiyaa waa aragtay soo marka waxa loo baahan waxay tahay dad dhalinyaro ah oo aqoon leh oo wax bartay oo wax fahmayo dadka kale oo aan waxba girnin inay u sheegaan dhahan warniyaho dadkan Facebook ka qaylinayo oo beenta la qaylinayo waa beenlowyaal wax cad ma hayaan sama garnin wax cadka awaatana shan lagu dhuftay 75 maaha waa been shan lagu dhuftay waa 25 sama garnino Facebook inta safristan kuleyn dawladdu waxay noola imaatay kuleyn xisaab qaldan 5 times 5 ee dawladdu waxay noogu sheekeynaysaa kuleyn 75 way waa xisaab iyaga ay wataan xisaab buu ku taala maahan inuu wacdi runtii maanta Soomaalida joogto waxa waaye hadaa dhahdid kan qalin waayo waxay kuleeyeen ma ahan waa caag hadaa dhahdid kan waa ma aragtay pencil waayo waxay kuleeyihiin waa niyo ma aha pencil waa pen marka marxaladda maanta Soomaalida haysata taas oo been laakiin brother dadka fiiri mindset-kooda dadka bedeli kara waa dadka dhalinyarada leeg ani fiiri adi waxa ii sheegto inaa qaatay u badan tahay ina ka weynaa laga yaabaa ina wax xooga ka weyn waa isku dhownahay soo markaa sheekeysano waa isla fahmeynaa wax laakiin oday 60 jir ama arkino ama oday 70 jir ah oo ciyaalkiisa dibadda uga soo tagtay oo baarlamaanka u fadhiyo 3 inuu qaato dadka waxba kama dhaadhicin karo soo dadka social media isticmaala boqolkiiba 75 dhalinyaro waay sama garanino dadka Facebook aad isticmaalaya Twitterka isticmaalayaan soo dadkaas waa dadka lagu adeeginaya kuwaas aan kala harnano aan dhahno odagan been uu sheega baarlamaanka ku jira ka qaylinayo anoo diyaaradda saarnaa la isoo diru kuleeyo waraaqda aan saxiixay war what are you talking about bal fiir ilaa kugu dhaariye nin kamid guddiga wuxuu kuleeyahay diyaaradan saarnaa markii la isoo diray waa akhriye fiir wuxuu dadka ugu sheekeenay sama garo marka maxaa ka garanaysaa meeshaas nimankan waxa waaye maxaa la dhigi jiray contractiyaashii la siinaya laga joojiyey maxaa la dhigi jiray wixii ay dekedaha kasoo bixin jireen laga joojiyey soo marka waxa u baahanaa waxaa mataqaanaa inaan annagana olole ku sameynano sida isxilqaan dawladda wada maartay isxilqaan Soomaarkino anagana Facebook ina la imaano waaye isxilqaan Facebook ma garanayno oo anaka aan hadlayno cadeynta aan keenayno anaka dawladda aan u hadlayno anaka runta aan ka sheegayno aad bay ula socdaan dadka dhamaantood wayna dareemi doonaa insha Allah waana saameynaysaa mar walbo adina dadaal badan baa hadii jeer muujisaa maadaama aad adiga mashquulsan xataa insha Allah waa wixii cadeemaha wanaagsan hadii jeer dhalinta wanaagsan maskaxda fi waa la wadaagayna hadii qaataan qaar hadaysan qaadanana waa filaha alxamdu laakiin waxa u wanaagsan walba nafsadiisa waxay tahay gabdhaha qaar baa guri iska leh qaar baa guri yeelan doono dabcan walaalkii qadka ka hadlaysan ama le qaaliga badana dhalinyarada Soomaaliyeed dad baa guri iska leh gabdhaha guri iska leh guri iska leh kuwa yeelan doono kuwa hadda yeelan doono marka waxaan u baaqaynaa waxay muhiim u tahay kuwaas ay muhiim u tahay in wanaaga iyo wadada lagu wada socdo ee baran doonaan kuwaas ay horumar u tahay in ma aragtay runta iyo wadada xaqiiqda inay fahmaan sida loo baadi goobo waxaan rajaynayaa inay fahmi doonaan qabaa'ilka ka weynaan doonaan horumarka iyo wadajirka iyo isxilqaam dalkaaga isku xilqaam inay ka shaqeyn doonaan aad baan wada salaamaya dawladda Soomaaliya dhamaan inta ka wada salaamaya
mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo dhammaan guddoomiyaha golaha baarlamaanka dhammaan xubnaha baarlamaanka dhammaantood wanaagsan iyo wasiirada dhammaan aad u wada shaqeey aad baan u wada salaamaya iyo horumarka ummadda soomaaliya inta ka wada shaqeyso inta xanuunsanna waxaa la alla subxaana watacaala ha caafiyo salaad walbaa tukataan u duceeyey maaragtay inuu ilaahay ayaga caafiyo wanaaga iyo xaqa inay fahmaan ee dalkooda iyo dadkooda horumarkooda ay ka qayb qaataan ee dalkoodana gees ka dhistaan laftigooda dalka ayay gees ka leeyihiin dadka xumaantooda marka waxaan leeyahay dhammaantiin aad baan ii wada salaamaya ballankeena waa silqaan wanaagana ka tali dadka social media ku jira xumaanta ka shaqeynayana ha taageerin wanaaga sabood garee wanaaga garab istaag had iyo jeer marka waxaan iiga tagay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhalinyarada qulubta ka xorooda aad baan ii wada salaamaya